dhalinyarada gacantooda isticmaala ama siidaysta inay biyahooda soo degdegaan laba arrimood ayaa sababta. Hadda waa maxay labada arrimood ee sababi karta biyo-baxa degdega dadka gacantooda isticmaala? Sideese dhalinyarada lagu goyn karaa isticmaalka gacanta? Bismillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waa anigoo ah Dr. Mahad Lusin, dhakhtarka kelyaha Kaadamarinka iyo taranka ragga. Waxaad iga helaysaa xarunteeda khaaska ah ee Badbaado Qoys Fertility Center. Maanta waxaan ka hadlaynaa dhalinyarada gacantooda isticmaala. Sidee ku dhacdaa in biyahooda soo degdegaan? Nooca koowaad waa nooca aanay joogtaynin isticmaalka gacanta. Waa dadka og inay aragtaan mushkilad ka imaanayso. Waxaa dhacda ninka dhalinyarada in dhowr bilood uu moogaado inuu gacantiisa isticmaalo. kadib hadday maalin maalmaha ka mid ah dhaco uu gacanta ku noqdo, waxaa dhacaysa in biyuhu hore ka soo boodaan maadaama uu hilow badan qabo ama dareen zaa'id uu jiro uusan waqti dheer biyo isan ka taagin. Laakiin waxaa dhacaysa inuu ninka dhalinyarada ku fikiro warniyoo biyuhu hore ka soo booday markaad gacanta isticmaasho. Armay siiganid dhaawacday, armay biyo-baxa degdega kugu socotay, armay raganimada u yeeq tahay, arma haddaad hadhow buursato naagta wax ka qaadi weysaa oo fashil yimaada. Arrintaas walwalka waxay sababaysaa hadduu gacanta mar labaad sameeyo asagoo baqaya inay dhacdo biyihii hore ka soo boodaan maadaama ay dhaqayso xaaladda loo yaqaan performance anxiety, walwalka cabsida la xiriira qofku inuu qowl qabto. Arrintaas oo sababaysa dhalinyaradu inay gubashii ka fogaadaan ama ay guursadaan ka baqaan. Xitaa hadduu guursado waxaa laga yaabaa soo walwalsan inuu galmada sameeyo, taasoo sabaysa in biyuhu soo degdegaan. Nooca labaad waa nooca joogteeya inuu gacantiisa isticmaalo, maalin walba isticmaala, breshar kastoo haya isaga dejiya, laga yaabay maalintii inuu dhowr jeer ku noqdo. Haddaba heer wuxuu gaari doonaa loo yaqaano death grip. Death grip waxaa laga wadaa gacantani waa gacan raf ah, weedka saaran waxaa loo yaqaanaa clitomized stratified spermatogenesis oo micneheedu yahay dhuubka ama baqaarka saaran mid raf ah oo adag oo aan la mid ahayn midka gabayta taranka dumarka saaran. Haddaba gacantan waxay dhaawici kartaa neerfayaasha xubinta taranka ama baqaarka xubinta taranka, taasoo sababaysa xubinta taranku inay noqoto inay neerfayaasheedu ay daboolka ka qaadmaan ama nerve endingska uu bannaanka yimaado. Neerfaha bannaanka yimaadi wuxuu sababi karaa inay xubintu noqoto hypersensitive, mid dareenkeedu zaa'id yahay oo sababaysa in biyuhu ka soo boodaan. haddaba death grip waa macnihiisu. Death grip waxaa laga wadaa qofkii inuu gacantiisa awood zaa'id ah isticmaalo oo uu ku yiraahdo anigu biyuhu igama imaanayaan ilaa garabku i xaniiqo ama gacantayda aan awood u isticmaalo, taasoo sababaysa in xubintu dhaawac gaaro. Dhaawacaas oo ay ka dhalan doonto in xubintu ay koocato. dhalinyarada death gripka qabaan mushkilada kale ay leeyihiin waxaa weeye in xataa hadduu galmo sameeyo inuusan maqaansi uusan ku dareemaynin midka uu ku dareemayay inuu gacantiisa isticmaalo ama biyaha baynu iska waayin, taasoo sababaysa inuu dib ugu noqdo isticmaalka gacanta ama uu qalatimo ilaa xubintu ay dhaawac gaarto, xubintuna ay noqoto mid lu ah. Haddaba isticmaalka gacantaadu wuxuu sababi karaa in mustaqbalkaaga dhanka gubasha uu soo gabagabeeyo xubintaaduna ay himato. haddaad tahay nin dhalinyaro oo mushkiladan ku dhiban, fadlan lagu soo booqo xarunteena Badbaado Qoys Fertility Center. waxaynu kuu samayn doonaa baaritaanka biotechnometry oo aan ku ogaanayno neerfayaasha xubinta taranka meelaha dhaawaca uu ka jiro. kadibna waxaan ku siin doonaa daawooyinka ugu muhiimsan oo neerfayaashaas soo kabaya oo ay ka mid tahay daawada delay wipeska loo yaqaano oo ah shukumaan xubinta lagu laabayo habeenkii qofka markuu seexanayo, taasoo qofka u sirtagelinaysa in neerfayaashu soo kabmaan xubintiisuna ay dib u soo nafaqaysato. ballanteenu waa Badbaado Qoys.